waa dhowr iyo 20 dhalinyaro oo isugu yimid aqal uu kiro ku degan yahay qoyska Cabdiraxmaan Ibraahim Barre oo kamid ah dadkii ugu horeeyay oo ay dawladdu ka keentay dalka Liibiya 2 bilood kadib xaaladda noloshooda dhalinyaradan waa ay soo yar hagaagtay marka laga eego ugu jireed dharka ay xiran yihiin iyo dareen la'aantii ku haysatay xabsiyada Liibiya kadib imaashooda Muqdisho 3 bishii May oo aynu ku soo gudubnay 2 bil kadib tabasho ay sheeganayaan maadaama balanqaad looga keenay dalka Liibiya waxyaabaha nolol balanqaad waxa kamid ah dawladda inay sii doonto shaqo abuur sidoo kale waxa kamid ah waxbarasho inay sii doonto ilaa yaani lacag oo nolosha dib ugu la qabsano kale in shaqo ku sameysano kale in dawladda siinaysa ayaa kamid ah waayo waad aragtaa nin waliba hami buu uga taariibay family buu yaani ka baxayn waxyaabo badan buu sameeyay balanqaadku waxaan u sameeyay afkiisa nooga balanqaaday safiirka Soomaaliya markuu xabsiga noogu yimaaday asigoona balanqaadkaasi jirin qofna soo ma laabateen muddada 3 cisho oo ay ku noolaayeen xarunta tahriibiyaasha ayay sheegeen in lambaro loo qoray kaarna loo qeybiyay kor kala duradooda waxay sheegeen in xilligaasi lagu wargeliyay in muddo 2 isbuuc kadib lacag fursado shaqo lagu abuurayo la siinayo balse ay jirin cid la soo xiriirta waxa jirtay in la siiyay ID kaaro ay ku qoran yihiin saddexdeena magac iyo lambar waxay kaloon siiyeen sim kaaro muddo kadib mas'uuliyiinta dawladda dabcan way iska tageen dadkii xarunta maamulayay waxay nagu wargeliyeen in aan xarunta isaga tagno muddo 3 maalmood gudahooda dadku waa dad dhibaataysan qof walba hadda ama xamar hadda ganaado ama degmo kale hadda ganaadee gurigiisii hooygiisii uu ku hooyan jiray waa la iibiyay ka warqabno oo lacag aad u fara badan baan naga soo qaatay marka anagoona haysan hooy aan ku laawano oo aan ku noolaano waan nagu wargeliyay in aan xarunta isaga baxno ijaarka guryaha ay degan yihiin ayay sheegeen in ay iska bixi kari waayeen maadaama safarka tahriibka Liibiya awgeed loogu iibiyay guriyihii ay milkiyad u lahaan jireen shaqo la'aanta haysata waxa ay sababi karaan in dhalinyarada ku sugan Liibiya ee weli u hanqal taagaya safarka Yurub ay nijibanayso kuwa qorsheynaya inay ku soo laabtaan fikirkan oo ay dalkooda dib ugu soo laabtaan sida uu qabo Maxamuud Muqtaar Sheekh Cabdi dadka maanta tahriibaya ku haminaya in ay maanta dalkooda hooyo ay dib uga tagaan iyo kuwa maanta jooga dalka Liibiya ee ku dhibaataysan ee jecel inay dalkooda dib ugu soo laabtaan waayo mar walba waan wada xiriirnaa dhalinyaradii naga maqneed ee maanta joogtay dalka Liibiya waan wada hadalnaa waan wada xiriirnaa waxayna weydiiyaan maxaan li qabtay maxaan li sameeyay hay maanta dawladii dhabaantii kulli maadaama dalka timaadeen anagana waan soo socnaa maxaan loo qabtay dadkii aad waxa ceebna nala noqotay inaan dhahno kulli waxbana looma qaban Xaawo Umar Maxamed waa hooyo leh 5 ilmood waxay kamid ahayd qoyskii ugu horeeyay ee ka yimid Liibiya waa sidee xaaladda nololeed oo ay ku nooshahay dadka Liibiya ka imaaday inay dayactir ay haysan oo wax maanta oo muslimnimo ugu maciimo ay haysan oo guri kire oo la dajiyay ama guriga hiib inka u leeyahay oo la sii oo jirin bilihii raashinka oo beesada la siinaa biilka ahay 2 bil 3 bil oo iskor saariyeen waxba la siinayna oo laga danaystay meesha laga keenaya aan maleynaa inay fiican tahay Soomaaliya waxay fiican tahay malaan waayo la masaacidaay masaakiinta wax lama siinay biilkii la sii jir lama siinay wixii loo balan qaaday lama siinay waxaan haysan mala waxaan ka codsanaynaa muslimiinta Soomaaliyeed iyo jaalibiyaasha iyo madaxweynaha Soomaaliyeed inuu nasaacido masaakiinta kor oo ka keenno oo saacido oo garab siiyo Haajir Qaadir RTN TV Muqdisho